Assalaamu calaykum waa channelkii Neekiisom kuna soo dhawaada qiso jecel balse intaanay bilaa muuqaalkan fadlan haddaad nagu subtay subscribe dhigan bilaalkana furo qaybtii koowaad ee qisada ma waxaan filayay baa waxa igu dhacay si kedis ayay isaga soo horbaxeen wuxuuna nasiib ku saaciday in ay isbartaan oo ayna isbarteen barasho kadib telefoonada ayay kala qaateen waxaana sidaasi ku bilowday wada xiriirkooda muddo markii uu socday xiriirkooda iska caadiga ay u soo bandhigtay dareenkiisa jecel ee iyada u qabay iyana jecelkiisa bas la ahaydo hisho dumar baahaye waxay ka hor keentay haye iyo waan ogolahay sidaas ayuuna ku bilowday xiriirkooda jecel waxayna noqdeen dhammaan isu faraxsan is ixtiraama isu dulqaata aadna isu jecel sanooyin markii uu socday xiriirkooda jecel ee uu saldhigga u ahaa farxadu wuxuu ka dalbaday guur si uu miro dhalo jecelkii muddada soo xanaanaynayeen iyaduna waa nafax jecel oo say rabtay marhabyo guddoon bay tiri waxayna isla meel dhigeen oo ay qabsadeen waqtigii uu ka soo dooni lahaa reerkooda saacadaha iyo ayaamuhu waxay isguraan waxaa la gaaray maalintii ay ballameen diyaargarow badan kadib isaga iyo ehelkii waxay ambaran in gabadha reerkooda labadii gaal la kulan oo la wada hadal laguna heshiiyo oo la isu raaco in la isiiyo labadan dhalinyaro ee gaankooda iska calmaday oo lagula ballamay aroos muddo kadib waxa dhacay arooskooda oo way isguursadeen dhamaanihii muddada jecelka soo wada daadihinayay waxayna noqdeen reer meel wada degan oo riyadooda ka rumeeyay la soo qaybta labaad hadduu alle idmo